السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحاب قيمة إقامة مدمر بجوتان كسود وهذا قلب فرن قام فرن يلا فرن بس لكن صار الله فإن دائما بجوتان نبضكم ولا ما أنت وحنا قد قلنا برنامج شيء نيكمل كها برنامج ده ودنا برنامج كمل كها أو أها أرمها بولودك تطلعاتك ما أنت بولودك محك عصر ما أنت وحنا إذن هنا وربحنا قابل هو ورد وحنا إذن هنا تاريخ دنيك الأمة عاو اللي فوق أما برمهان دم magaciisa caadiga waa barmahaandan balse Soomaalidu waxay u taqaanaa leeleefo taariikhdiisa oo kooban iyo waxaan haynaa 6 filim oo Hindiya ay soo gadatay ama dib ay u sameysay laakiin hore ay u sameeyaan Teluguga ma santihiin lixdaas filim oo ka sheekeyn doona marka waxaan idin leenahay gacan furan ku soo dhawaada nala soo soo noqdo wanaagsan haddii aan bilaawno 6 filim oo waxa jirto ay sameeyeen Teluguga balse Hindiya markale dib ay u soo iibsadeen ayagana ay sameeyeen oo isla sheekadii ah isla directorkii ku jiro sheekadii qaabkii director u qoray loo soo iibsaday okay filmaantaas waa filmaan caan ah weliba Telugu waxay ka ahayeen blackbuster waxaa la filmaanta all time ka mar walba waqtiga uu taagan yahay aan dhamaan mar walba xiisaha leh haddii aan ka bilaawno فيلم كوبا وحال لها بوكيري لبض كل اللحدي وحا سميه أكتر كعانكه ولو مقعو ماشي بابوي إيوه إلينا يبردها يا لو بدأ تشيد كاحي أوكي ماشي بابوي فيلم كاسي لبض كل اللحدي يسميه مثل الشيء كاسي واللي بيحا كدري بركاش راج يمكن يراده صومالي وطقانو سيربطا مثل الساس فيلم كاسي وحا لسو وريجي لبض كون يسقالكي بولوودكا وهيجيكا وحنا سميه وانتت أيلوبيه وحنا سميه سلمان خان إيوه عايشة تكيري إسلا فيلم كاس وحنا ذلك أو كجرو سيرب تاني كلو يقانو أما يستحد أوي هاي بركاش راكش فيلم كاسي بلاك باستر أول تايم أيوكا هاي بولوودكا أو كا هاي تلوجوجا بس بولوودكا نوحو كنقضي فيلم سلمان خان وأكشن فربنا قصة بندقة كرة حيستي نقول باللوسي هذا يرتاح حتى نيك أوفي عن أكشن ماذا يقولوا أسرع يقعد فيلم بس أسرع نقول هذا هذا أوكي فيلم كحيبه وحالها سينغام وحارو كيني لبعض يكون يتبنكي نكتر كلهم مقعوا سوريا وحال الجيل يتريش كهاد نيني شكيري قبل لهم فيلم كاس لبعض يكون يتبنكي وحاسمي سوريا wuxuuna ahaa film blackbuster ah waxaana ku jiray sidaas oo kale oo laadarka ahaa ninka la yiraahdo barkash raaj oo loo yaqaan saarabta isla filmkaasi waxa dib u soo gatay 2011 hal sano kadib ama 12 bilood kadib Bollywoodka waxa loo dhiibay Ajay Devgan aktarka weyn ee caanka ah kadibna waxa la waday Kajar Agarwala waa tirishakaha barkash raaj labada film buu ku jiray kaasna sidoo u jilay uma kana u jilay waa isla halkii film marka hore ku horeeyeen Teluguga kadibna ay soo qaateen Bollywoodka India filimka saddexaad waxa la lahaa Fikram Markadu waxa hore u sameeyay filimkaani ninka lagu magacaabo Ravi Jeta Ayusha Keri ayaa la jideysay Ravi Teja filimkan wuxuu sameeyay 2006 kadib Hindi ayaa soo gadatay isla sheekadii waxaan dib u sameeyay waxaan loo bixiyay magaca lagu magacaabo Rodi Rathore waxaana sameeyay Akshay Kumar ولو يقانو مستربون سونياك شيتي سينها أي تريشة كأي فيلم كاسي وحن دب لو سميه لابد يكون يلا بيتوانكي هدي مركز فيلم كاسي رفيق تجا أوكي لابد يكون يلا حدي دب حلوة اللي مر لبعض لابد يكون يلا بيتوانكي فيلم كاسي دحات وحالها طباكي فيلم كا 1 2 3 4 5 فيلم كأفراد وحالها طباكي وحكون راح يستي أو في عن أسميه بلاك باستر نقول نقطة نقول مجا عبد في جي وتلاقوها في جي فيلم كاسي مركي أسميه كده وحاول كيف فيلم كاسي لا سويت أسجنا كهجر أقروالا وحنا صباح فيلم كاسي لابد يكون إلا بالتوانكي لكن لبستني كده وحاسو قدرت بوليوود كا وحنا لو بحي هوليدي وحنا قاعد فيلم كاسي أكثر أهم لوسيجي أكشي كومار يسونانجي سينها بورا لو مقعوا لابد يكون أفر توانكي يدي بأسميه أوكي فيلم كشناد أما فيلم كليحات إيه أنكو بنصنع إن دول مرنا فيلم أنت بلاك باستر كنقضي وفيلم لو معاون كيك
2009 waxaa sameeyey Rafi Teja iyo Elina Taguri gabar lagu magacaabo Elina iyo waxaa sameeyey iyo waxaa sameeyey Rafi Teja. filimkaasi kick isla magaciisa lagu soo qaatay waxaa loo dhiibay Salman Khan 2014. Salman Khan weli filimkaas hadda wuxuu ku rajawan yahay inuu ka sameeyo qayb labaad. filmaantaasna waxay ahayd filmaan Telugu blockbuster ka noqday oo ilaa hadda ay ku faanaan, laakiin waxa dib kale u soo cusboonaysiistay oo adana shaqadii soo gatay ama marka la soo qaatay Bollywoodka una dhiibay actor caan ah sida Ajay, Mr. Bon iyo Salman Khan oo ku soo celiyeen filmaantaasi maadaama dadka Telugu adduunka saas aan loogu fiirsanin, laakiin sheekada film ahaan ayaga iskale ayagaan ku horreeyay. hadda filimka Rodir Ratur oo kaleeto Akshay Kumar ku caan baxay balse Rafi Teja asagoo laba isla sheekadaasi ayuu sameeyay 2006. okay waa maasantiin markaan waxaan guda galaynaa taariikhda oo kooban ninka loo magacaabo Barmahamdam. Barmahamdam waa ayo Barmahamdam Soomaaliya wuxuu taqaanaa Leelefo wuxuu dhashay Febraayo 1 Febraayo 1956 waa 64 sano jir. ninkaas Leelefo la 64 sano jir wuxuu ku guuleystay rikooro badan, koob fara badan iyo waxaan ku dhahaa abaalmarino aad iyo aad u fara badan. wuxuu ninkaas ka soo muuqday 100 filim in ka badan. ma aha nin sheekadiisa ciyaar ay tahay biladaha walba bilad walba wuxuu ku qaatay qaab gooni ah. waxa kamid ah biladaha oo qaatay Balmaravi Award oo 2009 oo qaatay iyo 5 jeer oo ku guuleystay 5 jeer markuu ku guuleystay Nandi Award bilada la dhaho film Far Award hal mar ayuu qaaday film Far Award 2019 noloshiisa waxa ku jirtay in qalin wadnaha loogu sameeyay kadibna uu ka soo kacay hadda 2020 wuxuu ku soo noqday inuu filmaan sameeyo. shakhsi ahaantiisa muxuu hanti leeyahay wuxuu ku yaadku hantida badan wuxuu haystaa 50 milyan oo lacag ah 50 milyan oo hanti ayuu haystaa marka laga bixiyo ganacsiyada yar ee asaga u shaqeeyo ama gurigiisa inta laga bixiyo aqoon ahaan 50 milyan oo dollar ayuu haystaa. Barmahamdam ama Leelefo sida u taqaanay 1986 ayuu soo galay filmaanta Telugu inuu sameeyo, balse filimkii ugu horeeyay ee Bollywood ah wuxuu sameeyay 1989. filimkaas waxaa la dhihi jiray Surya Vansham waa laba cala dheero. waan daawan doonaa qaybta uu ku lahaa filimkaasi in yar ayuu ka soo galay waa markii ugu horeysay Bollywoodka oo soo galo 1999. laakiin filim jilad wuxuu bilaabay 1986 markaas oo ka bilaabay Telugu ama Telugu oo ka bilaabay inkastoo filmaanta Telugu la isku dhaho ay badan yihiin oo Telugu, Tamil, Kennedy iyo Malayalam ay yihiin. marka Bollywoodka oo shirkad weyn ah oo Hindiya oo caasimad wuxuu soo galay 1999. waa maasantiin bal hadda aan aragno qaybta uu ka muuqday filimkaasi iyo sida uu ahaa. okay maasantiin barnaamijkan mid aan ku kulmi doono waxaan idin leenahay meel baad joogtaan bashbash iyo barnaamij ku noolaada farxad idin ku soo dhaweynaa fadlan jalan hadda ku soo tahay subscribe noo saar adigoo mahadsan waxaan ku leenahay nabad ku noolow sidaan nabad ugu joogno oo kaleeto meel baad joogtidna nabad ku joog insha Allah maasantiin.